soo dhawaada saaxiibayaal markale filimkeen wuxuu ku saabsan yahay markab ku xayirnay badda Atlantic halkaas oo ay saarnaayeen 70 qof waxaana la sheegay in markabkan halkaas uu ku xayirnaa muddo dhan 113 maalmood bilowga sheekada waxaana la tusiyay isla markabkaas oo ku sii socda dhanka Australia kaasoo hogaaminayay kabtan la yiraahdo Petrov ma ahayn kaliya kabtanku wuxuu ahaa qof wanaagsan nolosha dadka markab saarna ayaa ka qiimo badnatiisa markabku sii socday isigoo dhex subeynaya badda barafka leh laakiin wax kadib waxaan ogaanaynaa in barafku inuu jidkooda xanibay markaas Petrov wuxuu amar ku bixiyay in la leexiyo dhanka midig markii uu markabka dhex marayay barafka barafyo yar ayaa kusoo dhacay markabka xilligaas markabku wuxuu la kulmay xaalad culus taasoo sababtay in nin iyo eegiisii ku dhacaan badda markuu arkay Petrov wuxuu u carray inuu badbaadiyo wuxuu u rabay inuu ku boodo jaranjarada uu biyaha u dhaco si uu ninka u soo badbaadiyo laakiin kabtankii labaad ay ku yiri Petrov maxaa sameynaysaa ma waxaad doonaysaa inay halis geliso nolosha dadka oo dhan halin dartii qatar ayaa wiilna haysato waa inaan sii soconaa dood weyn ayaa dhexmartay labadooda kadib nin kale asiga badda ku booday si uu badbaadiyo saaxiibkiisii laakiin wuxuu arkay in biyuhu aad u qabow yihiin saaxiibkiisina wuxuu ku dhintay qabowga laakiin eegii weli u noolaa wuxuuna soo badbaadiyay eegoo markabka dib ugu soo celiyay laakiin qabowga ayaa sababay in ninka uu hadli waayo waxay ogaayeen in codkiisu uu la qaboobay laakiin barafku weyn ayaa caqabad ku ahaa markii hore loo sii socday nidaamka reedaarka markabku uu xumaaday taasoo ahayd dhibaato kale reedaarku wuxuu u sheegay meesha barafka yaalo iyo meesha biyuhu ka jiraan laakiin markuu xumaaday markabku ma ogaan karo halkuu baraf yaalo waxay si dhab loogu bixeen duufaanta laakiin hadda baraf weyn ayaa ku soo socday kabtan ku-xigeenkii wuxuu Petrov ku eedeynayaa wax walbo oo ay ku jiraan duufaantii geeridii ninkii iyo burburkii reedaarka Petrov ayaa la arkayaa inuu mas'uul ka yahay dhammaan waxyaabahaas sidaas darteed wuxuu u diray warbixin madaxda sare inkastoo dadkii markabkii saarnay arrintaas diideen waxay ogaayeen in Petrov uu yahay kabtan wanaagsan oo si ulkac u sameeyay waxyaalahaas laakiin markii warbixinta la diray madaxdii way aqbaleen Petrov ayaa markaa xeelka laga qaaday waxaa la sheegay in kabtanka labaad uu noqon doono kabtan ku-xigeenka ilaa imaan doono kabtanka cusub maalmo kadib kabtankii cusub ayaa diyaarad helicopter lagu keenay markii ka degay helicopterkii dharkiisii ee dab qabsaday sabab xiriirta matoorka kuleelka dadka markabka saarnaa waxay si degdeg u dimiyeen dabkii oo waxay badbaadeen duulihii iyo kabtanka laakiin kabtankii cusub halkii uu Petrov ugu madcelin lahaa wuxuu ku yiri inuu yahay kabtan xun kabtanka cusub wuxuu aan anagu xanaaq badan markii uu markabka soo galay wuxuu arkay in ciyaara koobku wuxuu ka qaado oo ku tooro koobkii kadib waxaana la tusiyaa meel walba barka doolo iyo markabkiisa buuxdo wax yarnee markabkii uma socon karo khadri kadaal midna dhinaca kale waxaana la tusiyaa magaalada Moscow halkaas oo xaaska Petrov furiyay ahayd ay la kulantay wasiir waxay saartay cadaadis in keeda la caawiyo dhanka kale dadkii markabkii saarnaa waxay kulan iskugu yeesheen si uga badbaadi lahaayeen dhibaatada mid kamid ayaa soo jeeday isla shidaalka markabka saarnaa laga sameeyo qarax weyn si ay suurtagal u noqoto inuu jid ku furmo kulankaas Petrov ayaa qabqaamay laakiin markaas kabtankii cusub ayaa yimid wuxuuna joojiyay kulankii waxayna u muuqato inuu jeclaan Petrov wuxuu sidoo kale diiday fikradii qaraxa laakiin Petrov arrintaas si fiican uma arkin kabtanka cusub wuxuu yiri shidaalka aad rabtaa inaad qarax ka sameysaa waxaa laga yaabaa in aan u baahno maalmaha soo socda sidaas darteed wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg oo muujinaysa in markabkoodii si xun uga xiran barafka markaas waxay bilaabeen in dhammaan adeegyada markabka la damiyo maadaama aysan garin koorta markabku xor noqon doono sidaas darteed waxay bilaabeen wax walba la keediyo markaas Petrov wuxuu bilaabay inuu fikiro ma doonin iska aamusnaado wuxuu yiri inta sugayna gargaar wuxuu qaatay qor faleero markabka degay si uu baaro buuraha barafka waqtigaas wuxuu arkay duulihii helicopter oo keenay kabtanka cusub laakiin wuxuu Petrov ku yiri wali cidna uma sheegi doono markii Petrov uu markabka degay hor u socday wuxuu arkay in barafka si buux u daboolay biyaha markii Petrov xeer sii socday wuxuu la isla koobkii kabtanka cusub u tuuray laakiin wuxuu ku dhacay god baraf waqtigaas ayuu ridasaasi qoriga aftiinka ahaa duulihii meel fog taagan ayaa ka arkay in Petrov uu dhibaato ku jiro sidaas darteed isigii shaqaale kale markabka ayaa u yimid si uu badbaadiyaan waxaa la soo celiyay waxaana loo geeyay dhakhtarka markabka kabtankii cusub ayaa si degdeg u canaantay Petrov laakiin Petrov ma uusan isiga ka camaran wuxuu watay macluumaad muhiim wuxuu u sheegay kabtanka in barafku uu soo socdo oo ka soo socdo gadaasheeda hadii aan la soo gaarin si degdeg dhamaantood wuxuu halkaas ku qaboojin doona oo ku dhiban doonaan kabtanka cusub wuxuu diimaysta cadeen Petrov wuxuu tusay koobka hor u tuuray sigoo leh adiga waxaad ku tuurtay meel fog marka waa in laga helaa meel fog laakiin aniga waxaan ka helay meel dhow taasi micnaheedu waa in barafkii soo socdo markab ku soo dhawaaday markuu kabtanka uu maqal rumaystay laakiin wax hadal ma arwoona ka tagay dhanka kale qaar kamid dadkii markabka saarnaa ayaa ka
kitaab ku ciyaaraya si niyad u dhistaan. Kabtanku wuxuu u yimaado wuxuuna ka qaaday kitaabta uu banaanka ku jibiyay wuxuuna ka amray in barafka la nadiifiyo banaanka markabka. Petrov ayaa ku yiri kabtanka cusub ma baahna inaad dadka sidaan loo dhaqanto. Wuxuu ku yiri wasiirka difaaca danka mala xaaladeena qofna noo imaan doono si noo gurmado sababta cimiladu waxay aad u xun tahay dabaylo qabow badan ayaa soo socda saa darteed waa inaan isgarab istaagno si wadajir u wajahnaa dhibkan. Marka maalin walba markabkooda daboolay barafka wuxuu sare u kacay 2 ilaa 3 insi maalin kasta. Petrov wuxuu soo jeediyay in Australia laga codsado caawinaad laakiin kabtanka cusub uu diiday inuu rumaysto. Barafku wuxuu bilaabay inuu gudaha soo galo markabka taasoo sababtay dulal heese markabka. Biyo ayaa markaas gudaha u soo galay waxaana xumaaday cuntadii iyo biyo nadiifka cabitaanka la cabayay. Markab dadkii markabka saarnaa waxay isku dayeen inay dalka xiraan laakiin khatarta weli way taagneed. Dhammaan dadkii markabka saarnaa way cabsanayeen waxay u maleeyeen inaysan noolaan doonin sababta shidaalka markabka wuxuu ku filnaa 3 maalmood oo kaliya. Cuntadii way dhamaatay mana jirin wax la cuno. Markii la joogay xaaladan kabtankii ku xigeenkii hore dadkii markabka saarnaa iyo ka cusub ugu hor yimaadeen kabtanka cusub wuxuuna yiri waa inaan qarax weyn ka sameeynaa shidaalka. Inkastoo kabtanku diiday wuxuu sheegay in dhammaan halka ku qabow doono ku dhimin doono. Dadka oo dhan waxay la safteen kabtanka xigeenkii hore waxay u tageen kabtanka cusub si xoog meesha ugu saareen kadibna waxay bilaabeen halkoodii ku qorsheeyeen qaraxa. Waxay qaateen 5 tan shidaal si uu qorxiyo meel fog. Petrov ayaa si xoog isku dayay inuu ka dhaadhicin sida sameeyay laakiin cindama dhageysan waxay sameeyeen qaraxa balse wax faa'iido lagama helin qorshihii uu fashilmay. Kadibna dhammaan waxaas kabtanka cusub wuxuu ku jahwareer wax la sameeyo wuxuu damacsanaa markabooda u dilo si dharkii labiska wata laakiin koorta u dilin Petrov ayaa arko ku yiri uma baahnid in asaas sameeyno waa inaan wajahnaa dhibkan si wadajir ah. Dhammaan dadkii markabkii saarnaa waxay dareemeen ceeb sababta waxay khasaareen shidaalkii oo dhan. Dhammaan waxay tageen xafiiska kabtanka cusub oo raaligelin ka bixiyeen. Kabtanku wuu cafiyay dhanka kale waxaana la tusiyay xaaska Petrov markii markab ku jirto waxay tagtay si dadka u badbaadiso. Markii eegeen waxay arkeen dilaac ku yimaada barafka markii arkeen dhamaantood way naxeen waxay dareemeen noloshoodii dhowdahay. Petrov wuxuu leeyahay markabkaan saarna dilaac barafka laakiin dadkii kale waxay leen taasi waa khatar weyn. Petrov wuxuu leeyahay waa inaan sameeynaa. Hadda kabtanka cusub wuxuu taageerayaa Petrov waayo hadda wuxuu garwaaqsan kartida Petrov. Petrov wuxuu yiri ninka helikabtar raaci doono inta soo jidka hore sababta reedarka hore u jabay. Petrov wuxuu u sheegay kabtanka adiga marka ku waxaad ka keeni doontaa gadaal laakiin kabtanka cusub wuxuu yiri aniga iyo helikabtarka ku tusaya jidka adigana waxa ku soo jir doontaa markabka waayo adiga marka si fiican u yaqaana. Kadib markaas qof walba uu dhiirad oo shaqadiisa iyo bilaabay. Kabtanka cusub iyo helikabtarkii ka tilmaamay jidka markabka waxaan nagnaa markab aad weyn oo gudbaya meel u jirta 10 mitir buur weyn oo baraf dhererkeedu yahay 100 mitir laakiin helikabtarkii kabtanka ayaa weli ag jooga buurta barafka ah sababta dabayl xoog badan soo socota. Markaas helikabtarka ay ku xirmaysa buurtaas barafkana hoos uu ku dhacaya markuu taas arkay Petrov wuxuu marka dib loo leexiyo. Kabtankii duuliyay biyaha ku dhacay waxayna ku qoostay in Petrov iman doono badbaadin doono waxayna ogaayeen markii hore isku dayo inuu badbaadiyo badbaadin darteed ayaa lagu qaaday xilka laakiin Petrov wuxuu imise u badbaadiyo qof walba uu culinayay laakiin markabku uu leexiyay dhankooda. Markii kabtanka cusub u dhaw inuu qooso Petrov ayaa yimid oo badbaadiyay kooxdii Petrov ayaa sidoo kale timid oo caawiyay maanta si nabad ay markabka ugu soo laabteen. Waxay aad ugu farxeen in ka badbaadaan masiibadaas aad weyn waxay sii socdeen waxay xilaaska Petrov markab saaran waxay markaas ku shubteen sidaal markabkoodii kadibna dhammaantood si farxad u sii safreen dhammaan si fudud u gudbeen dib aad weyn qof walba waa la badbaadiyay. Sawirka Petrov ayaa lagu daabacay wargeyska kaasoo ku daabacay xaaskiisii waxayna 133 maalmood ku xiriirnaayeen markabkan marka dhib kasta qof kulman uu dagaalamo guulaysan karaa. Filimkan halkaas uu ku dhamaanaya.